wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xariga ka jaray xarun caafimaad oo cusub oo laga hirgeliyay jaamacadda Soomaaliya sida warbixin warkaasi ku saabsan magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa xariga ka jaray shaybaar caalami ah oo ay wax ku baran doonaan ardayda wax ka barata jaamacadda Soomaaliya kadib xaflad ballaaran oo ka dhacday xarunta jaamacaddaasi gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya Maxamed Axmed Macallin oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in shaybaaradani casriga ah ay ugu talagaleen in sare ay ugu qaadaan aqoonta iyo garaadka ardayda wax ka barata jaamacadda Soomaaliya doontaa kacaan bay gelin doontaa waxbarashada Soomaaliyeed gaar ahaan waxbarashada sare waxaan rajo ka qabnaa in ardayda Soomaaliyeed ayagoo isticmaalaya qalabkaas ay noqdaan muxuu ahaa ay dad professional oo wax ka bedela maanta cilmiga iyo sayniska meesha uu marayo wax weyn ka bedela waxaan jeclahay wasiirka sharafta badan oo aan jecelnahay oo maanta aan idin sheegay inuu san soo marin wasiir asagoo kale ay hore nooma soo marin alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay noo badbaadiyo hana noo dhowro teeramkiisa iyo teeram kalaba waxa dadka tirada yar oo sida wasiirka kale u fakarayo qiimaha badan way yar yihiin dad aad u yar weeye marka ilaahay noo soo badiyo wasiirka kale Allah noo keeno dhammaan wasaaradda oo dhanna waa salaamaya waa u mahad celinaya sida ay noola shaqeeyaan hore iyo gadaalba noogala shaqeeyaan wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa waxa uu sheegay in jaamacadda Soomaaliya ay buuxisay shuruudihii looga baahnaa dhammaanba jaamacad waxaana uu wasiirku howlwadeenada jaamacaddaasi ku dhiirigeliyay in ay dadaalkooda laba jibaaraan si loo helo arday aqoontoodu ay heer sare tahay bixiya waxbarashada heerkeeda saddexaad waa jaamacadda Soomaaliya jaamacaduhu horto waa xarumaha cilmiga waa xarumaha hal abuurka waa xarumaha qorinta waa xarumaha ilbaxnimada marka aad ayaa ma arkaysa ay muhiim u tahay dalkeena inuu leeyahay xarunta aan maanta joogno kale waa waxaan ku faali karno waxay la tahay aniga tani waxay ka qayb ka tahay dardargelintii aan rabnay bal waayahan inaan ku dardargelino waxbarashada heerkeeda saddexaad ama tacliinta sare isla markaana aan u kuurgalno waxyaabaha ka socdo jaamacadka aan soo ogaano dalkeena institutionada noocan oo kale ka jiro oo wali aan arkin marka aadan ugu faraxsanahay waxa aan maanta aan halkan ku soo aragnay marka waxay la tahay taasina inay ayagana dadka institutionada sare iyo waxbarashada tacliinta sare iyo kuwa hoosaba ay ka fekeraan in ay horumar keenaan wax la taaban karo inay keenaan Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye Kalsan TV Muqdisho.